tijaabooyin yaryar aad ku ogaan karto haddii uu qofku jecel yahay ama uu ku xiisaynayo. Midda koowaad, eeg indhaha qofka muddo 5 ilbiriqsi. Xitaa haddii uusan ku soo eegayn adiga, waxaad eegtaa muddo ilaa 5 ilbiriqsi ah, kadibna ka jeedso. Arag wuxuu sameeyo haddii uu isku dayo in uu ku soo eego ama ishaada qabto, waxaa la dhihi karaa wuu ku xiiseeyaa. Midda labaad, socod ku mar qofka hortiisa. Waxaadna ka dalbataa saaxiib aad leedahay in uu indhaha kuugu hayo qofkan waxa uu samayn doono. Haddii uu qofkaasi indhaha kula raaco ilaa aad meesha ka marayso, waa calaamad kale oo sheegaysa inuu ku daneeyo. Midda saddexaad, codka hoose. Meel baad wada joogtaan adiga, qofkaas iyo saaxiibkaaga. Isku day sir inaad u sheegto saaxiibkaaga adigoo codkaaga hoos u dhigaya. Haddii uu isku dayo inuu maqlo waxaad sheegayso, wuu ku xiiseeyaa. Midda afraad, ma ku caawin karaa qofkani adiga? Waxaad ka codsataa in uu kugu caawiyo shay uu isagu awoodi karo. Haddii uu si fudud kugu caawiyo, wuu ku daneeyaa adiga. Talo muhiim ah, marnaba ha u sheegin haddii aad jeceshahay ilaa aad ka ogaato inuu isna ku jecel yahay. Ha ka badbadinin qofka, saa'idna ha uga fogaan, kaliya caadi u ahaw. Haddii aad hubsato in uu ku daneeyo, markaa kadib samee waxa aad doonto. Hadday kuu caddaato inuusan ku jeclayn, ha ka xumaan, kuwa badan oo ka fiican buux waaye. Waxaan rajaynayaa inaad ka heli doonto qofka qalbigaaga ku qoran.